السلام عليكم daawadayaal haddii aad xiisaynaysid inaad wax ku ogaatid hawada sare iyo koonkan aynu ku noolahay kursigaaga soo dhawayso hana soo iloobin koobkaaga shaaha ah ee hore ka soo qaado daqiiqado kooban ku faa'iidayso cilmi aanad weligaa hore u maqal daawo oo dhigo kuna dalxiistuni aanay weli indhahaagu arag dhagahaaguna maqal qalbigaaguna hore u sawiranin qorraxdu waa shayga ugu muhiimsan ee suuro geliya nolosheena noqoto mid socoto oo jirta waa xidigaad weyn oo weynideeda marka ay saynisyahanadu suuraynayaan waxa ay ku tilmaamaan in ay ka ballaaran tahay 109 dhul oo la isbarbar dhigay taas oo macnaheedu yahay meeraha dhulka aynu ku noolahay isaga oo 109 xabba ah oo la iska rab dhigay ayaa ay ka balcaweyn tahay qorraxdu sidoo kale qorraxda culeyskeeda marka la tilmaamayo waxay saynisyahanadu sheegaan inay la miisaan tahay 330,000 oo dhul culeyskood taas oo la micno ah in ay ka culus tahay 330,000 oo jeer dhulkan aynu ku noolahay waxa ay qorraxdu ka samaysan tahay gaasas isu tegay oo isjiidanaya kuwaas oo awoodooda iyo shaqada ay hayaan aanay maskaxda suuraysan karin curiyayaasha ay ka samaysan tahay qorraxdu laba curiyo ayaa u badan hydrogen-ta ayaa 3.7% ka ah qorraxda halka ay helium-tu ka tahay 5.25%. tamarta ka jirta qorraxda bu'deeda ama xudunteeda gudaha si ay uga soo baxdo gudaha hoose ee bu'da oo ay oogada sare u soo gaadho waxa ay ku qaadataa 10,000 ilaa 170,000 oo sano taasoo ka dhigan in tamarta oogada qorraxda ka jirta ay samaysantay 10,000 ilaa 170,000 oo sano ka hor sidoo kale marka weynideeda la odorosayo waxa la tilmaamaa in footoniska ama curiyayaasha ilayska sida ay ku qaadato inay xudunta qorraxda ka soo tallaabaan oo ay yimaadaan oogada sare muddo 40,000 oo sano ah ilaysku marka uu oogada sare ee qorraxda u soo baxo waxa ay ku qaadataa muddo 8 daqiiqadood ah inuu fallaadhaha cadceeddu ay dhulka ku soo gaadhaan taasoo ka dhigan in ilayska kuu muuqda ee qorraxda ama fallaadhaha ku dhacaya ay 8 daqiiqo ka hor ka soo baxeen qorraxda hadda ogow 8 daqiiqadood oo keliya ayuu ilayskaasi ku soo jaray masaafo dhan 150 milyan oo kilomitir masaafadaas oo ah masaafada u dhaxaysa qorraxda iyo dhulka markaa fahanka guud ee mawduucu waa in ilayska aad arkaysaa ay ku qaadatay inuu xudunta qorraxda kaga soo baxo 10,000 ilaa 170,000 oo sano ilayskaas oo ku gaadha oogada sare ee qorraxda muddo 40,000 oo sano ah haddana ay ku qaadatay muddo 8 daqiiqadood oo keliya in fallaadhaha qorraxda ay dhulka si toosa u soo gaadhaan fallaadhahaasoo dhulka ka suuro geliya nolol iyo jiritaan muuqda xidigtani aad bay u weyn tahay oo mar walba way fidaysaa oo koraysaa tan iyo bilowgeedii waana sii awoodaysanaysaa maalinba maalinka ka dambeeya saynisyahanadu waxa ay qabaan inay xilligan tahay xilliga ay ugu awoodda badnayd uguna tamarta badnayd cilmi baadhayaashu waxay sidaas u leeyihiin halbeegga xisaabaday kula socdaan ayaa muujinaya 4.5 bilyan oo sanno in ay jirto da ahaan waxa ay tilmaamaan xeeldheerayaashu inay qorraxdu ku jirto xilliga ay ugu fiicnayd taasoo macnaheedu noqonayo inay nolol suulo gelin karto muddadii ay jirtay in leeg oo kale qiyaas ahaan ilaa inta ay jirto oo cimri ah taasoo ka dhigan inay dhallinyaro tahay maanta xidigtani waxa ay ka mid tahay tiriyanno xidiga ah oo koonkan aynu ku noolahay ka jira waana mid ka mid ah kuwa dhexdhexaadka ah xajmi ahaan ahna xidigta keliya ee leh meerayaal uu ka mid yahay meere ay nolol ka jirto meerahaasoo ah meeraha dhulka